kulanti wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan channelka xaqiiqo news qodobada aad saaka ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Kenya oo shaacisay in dalkeeda uu soo galay madaxii amniyaadka shabaab ee gobolka Banaadir oo gacanta ugu jiray dawladda Soomaaliya oo sheegtay in saraakiil sarsare oo ka tirsanaa shabaab lagu dilay duqeyn ka dhacday Shabeellaha Hoose dawladda federaalka oo si rasmi ah u fasaxday duulimaadyada rayidka ahaa ee Kismaayo iyo Muqdisho xubno ka tirsan aqalka sare oo sheegay in ay ka walwalsan yihiin dib u dhac ku yimaada doorashada sanadda 2020 howlaha caafimaadka cisbitaalada magaalada Kismaayo oo laga deyrinayo iyo Iiraan oo sii deysay markabkii Britain akhyaari waxaad ku soo dhawaataan warkii iyo fidsan oo idinkaga imaanaya channelka xaqiiqa news aan ku bilownay ciidamada booliska dawladda Kenya ayaa shaaciyay in uu dalkeeda Kenya soo galay nin lagu magacaabo Ciise Khaliif Cabdi Ciise Tarabuun iyagoo soo bandhigay muuqaalkiisa iyagoona dadka ka dalbaday qofkii aragta in ay booliska ugu soo wargeliso si degdeg ah booliska Kenya ayaa sheegay in Ciise Tarabuun ay rumaysan yihiin in uu dalka Kenya galay 24kii bishan September 2019 waxayna dadweynaha ka dalbadeen cidii warkiisa hesha ama aragta in ay si degdeg ah ula soo xiriiraan ciidamada booliska iyadoo arintan ay noqonayso mid la yaab leh sababtoo ah ninkan wuxuu gacanta ugu jiray dawladda Soomaaliya tan iyo sanadii 2017 dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga ayaa shaacisay 19kii June 2017 inay gacanta ku dhigeen madaxii amniyaadka shabaab ee gobolka Banaadir Ciise Tarabuun oo lagu qabtay howlgal ka dhacay suuqa Bakaaraha wuxuuna xilligaas sheegay wasiirka wasaaradda amniga in maxkamad la soo taagi doono wasiirka amniga gacanta dawladda ayuu ku jiraa Ciise Tarabuun cadaaladda ayaana la horgeyn doonaa lama oga halka uu ku dambeeyay Ciise Tarabuun markaas kadib lama maqlin maxkamad la soo taagay waxaana warkan booliska Kenya shaki gelinaya qaabka sirdoonka Soomaaliya u shaqeynayo dawladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah xalay u fasaxday duulimaadyada rayidka ahaa Muqdisho iyo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaha wasiirka warfaafinta Aadan Isaaq Cali ayaa sheegay in go'aankan ka soo baxay dawladda Soomaaliya lagu fasaxay duulimaadyada rayidka ee magaalada Kismaayo kadib codsi uga yimid shacabka sida uu wasiir ku-xigeenka warbaahinta u sheegay dawladda Soomaaliya iyada oo tixgelinaysa baahiyaha dadweynaha Soomaaliyeed ilaalinaysa danahooda in ay helaan adeegyada ay u baahan yihiin kadib markii ay dhageysatay codsi kaga yimid shacabka reer Kismaayo dawladda Soomaaliya waxa ay fasaxday duulimaadka rayidka ahaa ee isaga gooshi jiray magaalada Muqdisho iyo Kismaayo go'aankan waa mid loogu daneynayo shacabka reer Kismaayo dawladda iyada oo gudanaysa mas'uuliyadeeda dastuuriga ah waxa ay cadeynaysaa inay u taagan tahay ilaalinta xuduudaha dhuleed bad taas oo ah mid waajib ah mana ogolaanaysa cid kasta oo ku xadgudbaysa waajibaadkaasi qaran dawladda ayaa toddobaadkii la soo dhaafay xayiraad saartay duulimaadyadii tooska ahaa ee Kismaayo iyadoona arintaas ay saameyn badan ku yeelatay dadka shacabka ee halkaas tagi jiray sidoo kale xayiraadda dawladda federaalka Soomaaliya saartay duulimaadka ayaa waxa ka dhashay dhibaatooyin dhanka caafimaadka iyo kuwa kale sida uu warbaahinta xaqiiqa news u sheegay xildhibaan Maxamed Xasan Idris xildhibaan Ganay aniga xildhibaano kale oo badan halkaas aan ku go'doonsanahay xaaladaha caafimaad dhibaatooyinka dadkii xanuunsanaa ama dhaawac ahaa ama howlaha caafimaad oo isbitaalada oo dhan aad ay u saameysay dhimasho iyo dhaawac oo aan waxba laga qaban karin oo dandaraysan oo isbitaalada qaarkood hadda ay soo bandhigeen oo aad aragteen aan u malaynayo ayaa jira wax ka danqanaya ma jirto xukuumadda federaalka nasiib darrada
sii haysto dadka haddana waxay tahay inayba inkirtayba in iyadii ay cunaqabataysay oo nin Canada kasoo hadlaya shir jaraa'id meel ku qabtay oo sheegaya in aan cunaqabatayn la saarin dadkan oo la yiri kaliya 24 saac ka hor la soo codsado oo u dhigma hadal qaab ciidan dagaal ku jira jiida hore joogo oo kale in arrimo laga wareysanayo amniga ku saleysan oo kale in uu jawaabay ninkan una qalmin dadka Soomaaliyeed in sidaas loogu jeeso waa hagaag akhyaaray weli waxaad la socotaan channelka xaqiiqa news xubno ka tirsan aqalka sare ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya sanada 2020 xildhibaanada walaacaas qaba ayaa waxaa ka mid ah senator Xuseen Sheekh Maxamuud wuxuuna senatorka sheegay in tuhun ay gelisay aamusnaanta ay xukuumadda ka aamusan tahay in ay shaaciso qaabka ay u dhacayso doorashada iyadoo horey loo sheegay in doorasho qof iyo coda la filayo in ay Soomaaliya ka dhacdo 2020 taas oo aysan haatan ifafaalaheeda muuqan waa kan senatorka oo walwalkaas qaba badan ayaa iiga muuqda Soomaaliya doorashadeeda ayaa waxay ahayd waxa kaliya ee ilaa hadda mataqaana Soomaalida ay heshiis ku ahayd inay doorasho dhacdo laga soo bilaabo Embagati laga soo bilaabo halkan xilligii mataqaana 2012 2016 waxa sida nabadgelyada leh la isugu soo wareejinayay xukunka ayaa ahayd doorashana dib u dhac iyo mataqaana nooceeda mar walba waa la isku qaban jiray laakiin nooca dib u dhac ma jirin hadda marka walaacan muujinayna ayaa ah in mataqaana loo hanqal taagay in waqti lagu darsado in aan mataqaana jidkii saxda ahaa loo maraynin oo lagu guul daraystay in Soomaalida iyo ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed la gaarsiiyo qof walba inuu codkiisa dhiibto marka walaacaas ayaa iiga muuqda laakiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay hadda gacanta ku hayaan guddi ad hoc committee u saareen arrimaha doorashooyinka dhaqdhaqaaqay wadaan laakiin haddii aan backup siyaasadeed oo culus la soconin dabcan baarlamaanka aniga waxaan aaminsanahay guud ahaantiis waa la cuuriyaamiyay weli waxaad la socotaan wararka idinkaga imaanayo channelka xaqiiqa news markab watay calanka dalka Britain kaas oo bishii July ay qabsatay dawladda Iran ayaa sabtidii shalay ku xirtay dekada dalka Dubai ee isu taga Imaaraadka Carabta markabkan oo lagu magacaabo Stena Empero kaas oo lagu hayay deegaanka Bandar Abbas ee dalka Iran in ka badan 2 bilood ayaa bilaabay in uu ka dhaqaaqo dalkaas jimcihii daraad isagoo gaaray sabtidii shalay magaalada Dubai guud ahaan warkii aad kala socoteen channelka xaqiiqa news akhyaari waa naga inta